الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لحية طبنات دروس تاني بشهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. رمضان شهر القيام. رمضان وبالاستاجة هبينكي أو صلاة تكذو. هذا من رمضان وبالهبينكي لتكذو صلاة داسي أما صلاة تراويح النقطة صلاة الليل هالنقطة صلاة الليل تهجدك وتري سميها ما شئت. horta kullu salaa si aan masale ahaan u sheegnaba salaad kasta oo bisha waxaan u jeedaa cishaa'iga kadib la tukado. salaad kasta oo cishaa'iga iyo subaxa inta u dhaxaysa la tukado waa salaatuleyl, magacaasay leedahay. taraawiixdu waa salaatuleyl, tahajudku waa salaatuleyl, witra dadku waa salaatuleyl. marka salaadaasi habeenkii la tukado rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam aad buu u tukan jiray ilaa ay lagu yiri rasuulka sal allahu alay wasalam yaa rasuul allah lugihiisu ay dildilaaceen oo barareen oo lagu yiri ilaahay wuu kuu dhaafay maa taqadama min dambika wamaa ta'akhara, maxaa isu dhibaysaa? kadibna wuxuu yihi afalaa akuuna cabdan shakuura, oo haddii ilaahay ii dhaafay aniguna ma noqonayo miyaa addoon ilaahay ku mahadiya? waa inaan ilaahay ku mahadiyo hadduu alla ii dhaafay. xadiidka horena waa inaga hore usoo sheegnay man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama. qofkii habeenkii istaaga iimaan iyo maarata ixtisaab ilaahay dartii u istaaga, marka waa dembigiisii hore oo dhan ayaa loo dhaafaya. haddaba bishan ramadaan waxaa la rabaa siyaamul jawaarix, xubnahaagu inay soomaan. ma aha inaan afka keliya ka soonno, waa in xubnaheenna oo dhan ay soomaan. saa'im waxaa la odhan karaa qofku xubnihiisu soomeyn oo dembiga ka soomeen, qofka indhihiisu soomeen oo eegmada xaaraanta ka soomeen, oo waxyaabaha xaaraanta ee maanta miidiyaha ka buuxa iyo fiiradooda layska ilaaliyo. qofka dhegihiisu soomeen oo muxaramaadkii iyo qiibadii iyo xantii iyo namiimadii iyo heesihii iyo ay ka soomeen. qofka ay gacantiisu ka soonto shay xaaraama inay qabato. qofka lugihiisu ay ka soomaan shay xaaraama inay u socdaan. qofka carabkiisu uu ka soomo kidbigii iyo fuxshigii iyo qowla zuur, waxyaabihii markhaati beenaalaha iyo waxaasoo dhan ka soomiya caydi. qofka calooshiisu ay ka soonto cuntadii iyo cabitaankii. qofka farjigiisa xubankiisa taranka uu ka soomo jimaaci uu ka soomo. rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam man lam yadac qowla zuuri waalcamala bih, qofka aan ka tegin hadalka beenta ah iyo ku dhaqankiisa, allah danka male qofkaasi inuu min an yadaca tacaamahu wa sharaabahu. cuntadaada ama cun ama daah aday ku taala, waxaa laga wadaa ajir ka heli maysid. waa xadiis imaam bukhaari soo saaray. ajir ma laha haddaabad marba waxaa ka teginaya qashinka, soonkaagii ajir male. waidaa kaana yowmu sawmi axadikum, u fiirsa xadiidkaa kale, haddii maalin la gaadho qofku maalin soonkiisa uu joogo, falaa yarfuth walaa yaskhab, yuusan qofkaasi fuxshi iyo xumaan iyo qaylo samaynin iyo jimaac iyo wax kala toona. fa in saabahu axad, haddii qof ku caayo ama kula dagaalamo, waxaad dhahdaa inni mru'un saa'im, anigu waan soomanahay dheh. masajkaa dir, waa masaj aada u fiican, qofka qalbigiisa wuu bedelaya. war anigu waan soomanahay, ku caayi maayo, ku aflagaadayn maayo, waay maxaa jira, waan soomanahay wey macno. ama qofki yidhahda waan soomayaayo cuntada iyo cabitaankaan iska dayn, laakiin ku afuraya luxuuma ikhwaanihi lmuslimiin, walaalihii hilibkoodu cunayaa, cirdigooda iyo sharaftooda ayuu cunayaa. waa kaasi kaloola jeedo ruba saa'imin, qof sooman oo xadigiisa iyo dheefta soomkiisa uun juuc iyo cadash ka helaya, gaaji iyo oon keliya buu ka helayaa. haddaba waxaa la rabaa khatawaad camaliya lilmuxaafada cala alawqaat, yacni inaynu ilaashano waktigeenna. waxaa habboon inaynu awqaaddeenna ilaalino. wax inoo keenaya alfawzu wasacaada yowma alqiyaama, maalinta qiyaama liibaan iyo reerayn keli ah inaynu la nimaadno. ilaa uu qofku noqdo bishiisa ka ilaashay. kow horta waa in bixidda, dad baa waxaa jira iyaga oo daruuraba aan u baxayno iska wareegayo iska socda. wareega tirada badan maxaa jira, indhahaagii baa wax walba ku dhacaya, suuqii oo maanta dhan lagu sii socdo, oo laga yaabo waxaad xitaa meelo kale ka adeegan kareen. amazon baa maanta adduunka waxaa jira suuqa caalami ah oo internetka gudihiisa aad ka adeegan karto. dadka teknolojiyada yaqaana inaad baxdaba uma baahnidba, adeegaaga albaabkaa lagugu keenayaa. ziyaaraadka naftiisa
kuwa aan munaasabayn qofku iska wareegayo maalinta oo dhan uu socdo. Qaar waxaa jira dadka xanuunsan xitaa haddaad soo booqo, laakiin ha ku agdheeraanin, ha iska fadhiisanin. Dadka mujaalasatu suu, dadka xunxunka ah hala fadhiisanin, ee xanta iyo namiimada iyo kidbiga iyo istihzaa iyo jeesjeeska iyo dacniga ummadda kale ay durayaan iyo dadka hawl ka dhigta ha samaynin. Aflaamta iyo musalsalaadka waqtigaaga ha ku qaadanin. Soo jeed habeenkii oo dhan inaad soo jeedo ood maalintiina dayacdo, salaadihii aad dayacdo ha samaynin. umuurahaas oo dhan waxa suxbatul ashraar, dadka xunxunka hala saaxiibin iyo bidaanata suu hala saaxiibin. waqtigaaga inaad ku dayacdo mukaalamaad, teleefon caawa maadhodan la diri iyo facebook ku jirid iyo waxyaabaha noocaasana iska ilaali. waqtigaani waa waqti kooban, waqtigaa kooban wuu ku dhaafayaa, waa waqti tirsan oo maalmo ah. aan ka faa'iido wax walba oo kale iska xidh biidni illaahi tabaaraka wa tacaala.